hooyadii ayaa waxay ku tiri hooyo sawma ogid aabbaha inuu shaqo ku mashquulsan yahay inta badan xilli dambe ayuu yimaadaa marka uu yimaadana waxoogaa nasiimo ayuu qaataa laakiinse aabbaha aad ayuu kuu jecel yahay markastana waa ay kaa weydiiyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kaliya muuqaal cusub waxaan ku soo qaadan doonaa maanta qiso waxa uu ahaa aabba ku mashquulsan markasta shaqadiisa waxa uu lahaa xaaskiisu waxa ay u haysay ilmo yar oo 6 sano jira mar walba waxa uu ahaa mid shaqadiisa aad ugu mashquulsan waqti lama uusan qaadan jirin qoyskiisa waxa uu ka soo bixi jiray shaqada waqti dambe isagoo oo daalin ayuu guriga iman jiray sidaana waa uu ku nasan jiray aabbahan iyo wiilkiisu iskuma aysan helin waqti ay isla qaataan mar walbana waa uu rajaynayay maalin maalmaha ka mid ah inuu aabbihii la sheekaysan doono wiilkeedii keligii ayuu ku ahaa aqalka marka laga reebo hooyadii oo la joogtay hooyadii marka ay shaqada guriga ku jirto isaga oo keliya ayaa qolka soo xiri jiray waxa uuna dareemi jiray cabsi fara badan aad ayuu u murugoon jiray hooyada ayaa waxay isku dayi jirtay in ay bal ka baabiiso murugada fara badan ee haysa wiilkeeda laakiinse kuma aysan guulaysan waxaa maskaxdiisa ka furnaa buuq fara badan waxa uu soo xasuustaa saaxiibkii iyo aabbihii sida ay isku yihiin haddana waxa uu xasuustaa aabbihii sida uuna waqti ula qaadan wiilkeeri ma uusan akhriyi jirin casharada maxuuba casharo akhriyaa jawigaaba ka qasane aabbihii ayaa maalin maalmaha ka mida ka soo raawaxay shaqadiisa waqti aan looga baran waxa ayna ahayd waqtiga qadada isagoo oo markaa ku soo daalay shaqada aabbihii waxa uu la soo hadlay xaaskiisa waxa uuna ku dhahay waan soo socdaa baahi badan waan dareemayaa qadaday noo sii diyaari waxa uu weydiiyey ma jiraa waxaad u baahan tahay oon horay kugu soo iibiyo waxa inagu jawaabtay ma jiraan waxba wax walba waa diyaar adiga un baan ku sugaynaa goobta ay hooyadii iyo aabbuhu ku wada hadlayeen waxaa ka dhowaa ilmahoogii yaraa hooyadii ma aysan jirin moobilkii isagoo aabbihii khadka ku jira ayay ku dhigtay ilmihii yaraa ayaa soo dhaqaajiyay wuxuu dhahay hooyo aabbahay ma ikaa weydiiyey kollay aabbahay ikaa weydiin maaye hooyadii waxa ay ku tirid aabbaha waa ikaa weydiiyey aad ayuuna ku jecel yahay aabbihii waa uu dhageysanayaa oo weli waxa uu ku jiraa khadka hadalladana dhagihiisa ayay ku socdaan wiilkii yaraa waxa uu dhahay hadduu aabbahay jecel yahay muxuu igu akhrin waayay qisooyinkaas oon ka codsaday in uu ii akhriyo saaxiibkay aabbihii ayaa waxa uu ii akhriyey qisooyin aad u fara badan marka uu arka xiisahaan u qabo ka aan la joogo saaxiibkay waa mid soo dhaweeya aabbihii albaabka ayuu ka furaa kadibna laabta ayuu geliyaa isagoo aabbihii leh aawa wiilkaygii quruxda badnaa isna waa uu ka hortagaa waxa uuna ku dhahaa way kan aabbo aniguse intaaba aabbahay iima sameeyo aabbihii isagoo oo dhagaysanaya ayuu gaadhigii baarkin gashaday si uu u dhuuxo hadalka ka soo baxaya inankiisa yar hadalkaa ilmaha yar ka soo baxay hooyadii ayuu qalbiga ka taabtay waxa ayna ku tirid hooyo sow anuu laabta kuma geliyo mar walbana kulama joogo wiilkiiraa waxa uu dhahay haa adigu waad ila joogtaa mar walbana waad dhukataa laakiin waxaan u xiisay aabbahay in aan waqti la qaatana goorma igu dambaysay hooyadii ayaa waxay ku tirid hooyo sawma ogid aabbaha inuu shaqo ku mashquulsan yahay inta badan xilli dambe ayuu yimaadaa marka uu yimaadana waxoogaa nasiimo ayuu qaataa laakiinse aabbaha aad ayuu kuu jecel yahay markastana waa ay kaa weydiiyaa wiilkii yaraa oo dhalla caddaynaya ayaa wuxuu dhahay ii dhii moobilkaaga aan geem ku ciyaare inta uu aabbahay ka imanayo aabbihii oo aan is ogeyn ayaa waxaa ka soo daatay ilmo waxa uuna go'aansaday inuu si degdega u jaro moobilka isagoo isla markaana u dhaqaajiyey dhankii maktabadda waxa uu soo iibiyey bugaag fara badan oo qisasa isaga oo markaana u soo degdegaya gurigiisa waxa uu soo gaadhay gurigii albaabkii marka uu taagan yahay ayuu qaraacay kuma uusan furan furihiisii laakiinse waxa uu ogaa in wiilkiisu uu ka furayo wiilkii yara ayaa soo cararay markaasuu ka furay aabbihii ayaa wuxuu dhahay aawe wiilkayga quruxda badnaa
kadibna wiilkii yaraa ma uusan dhaqaaqin ee waa uu taagnaa isagoo oo bal fiirinaya hadalkaa uu maqlay in uu run yahay. Aabbihii ayaa ku soo cararay, laabta ayuuna geliyey, waa ayna isku dhegeen. Aabbihii waxa uu bilaabay in uu wiilkiisa yaraa meel kasta uu ka dhunkado. Hooyadii ayaa si lama filaan uga soo baxday jikadii, waxa ayna indhaha ku qabatay wiilkii iyo aabbihii oo isku dheggan, waa ayna la yaabtay. Waxaabad moodaa in aysan weligood is arag, ay hadda isugu horreyso sida ay isugu xiiso qabaan. Hooyadii waxay tidhi, waan diyaaray qadadii. Aabbihii ayaa waxa uu ishaaray in uusan cunto diyaar u ahayn. Wiilkiisa yaraa ayuu soo qaaday isaga oo laabta ku haya. Waxa ay tageen qolka fadhiga isagoo markaa u bilaabay inuu u akhriyo qisooyinkii uu ka codsaday. Wiilkii yari waxa uu ku dul jiifay laabta aabbihii. Waxa uu u akhriyay qisooyin fara badan. Waxa uu u akhriyay qisooyinka ambiyada. Sida uu ugu akhriyay qisooyinka, waqtiga ayaa aad u dheeraaday, laakiinse ma aysan dareemayn waqtiga dhererkiisa maxaa yeelay aad iyo aad bay isku faraxsanaayeen. Wiilkii yaraa waa uu ku dul gamay isagoo laabta aabbihii ku jira. Aabbihiina sidoo kale waa uu gamay. Hooyadii oo aad u faraxsan ayaa la yaabtay waxa ay sameynayaan wiilkan iyo aabbihii. Waxa ayna tirid maanta kadib maalin kasta sidan oo kale ay guriga farxad uga muuqan doontaa. Waana laga soo baxay maalmihii dhibaatada iyo murugada kelinimada ee lagu jiray. Qisada waxaynu ka faa'iideysanaa waxaa jira aabbayaal fara badan oo Soomaaliya kuwaasoona ubadkooga waqti la qaadan. Waxa kaliya ay yaqaanaan waxa uu yahay in ay cunto ka dhergiyaan, waxbarashana ay u diraan, laakiinse nasiib daro waqti ma siiyaan, farxadna ma dareensiiyaan carruurtooda. Haddii aad tahay aabbe, Rabbina uu kuu hibeeyey awlaad, waxa ay kaa mudan yihiin in aad waqti la qaadato, farxadna aad u muujiso.